xaflad loogu dabaaldegayay maalinta caalamiga ee haweenka ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho. Munaasabada loogu dabaaldegayay waxa soo qaban qaabiyay Midowga Yurub, Midowga Afrika, waxaana lagu qabtay xerada Amisom ee Xalane, iyadoo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madax ka socota wadamada Afrika, Midowga Yurub iyo qaramada Midoobay. Ugu horreyn waxa ka hadlay Michael Sarfan oo ah wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya. This also touches on the core development process, particularly the New Deal. Women have to be involved in all levels. Once again, another example that the British ambassador was just giving me and the special representative of the African Union, Amisom through their is increasingly working very closely with Somali women in what they're doing, the way they operate. So it's at all levels. Women have a key role also. wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa ugu hambalyeysay maalinkan haweenka Soomaaliyeed. haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan hambalyo. waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed meel walba oo dadaal iyo dagaal ay kaga jiraan hambalyo. gobolada oo idil waxaan rabaa inaan xuso haweenka Soomaaliyeed amaba ku geeriyooday ayagoo difaacaya wadanka ama ayagoo danahoodii bini'aadanimo maraya gacan xaq dara ah ku geeriyooday ayagana inaan xuso oo baroordiiq aan uga bixiyo maanta halkan. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad oo soo xiray munaasabada ayaa isna sheegay in ay qayb ka qaataan siyaasadda dalka haweenka Soomaaliyeed. xaqiiqdii waxa dastuurkeenu uu nafaraya in xoogga la saaro ka qayb qaadashada haweenka ee dhinac walba ha ahaato ka qayb qaadashada haweenka xagga ka go'aan qaadashada masiirka dalka ha ahaato xafiisyada la isku magacaabo iyo kuwa la isku doorto ha ahaato waxa weeye maamulka sare waxa weeye dalka agaasimayaasha guud iyo maareeyaasha iyo hogaamada kala duwan ee xafiisyada madaxa bannaan iyo haddii la fiiriyo waxaad dhammaantood ka arkaysaan heerka ay ka marayso ka qayb qaadashada. bishii Maarso 1977 ayaa mas'uuliyiin ka socotay Midowga Yurub iyo qaramada Midoobay iyo madax ka socota qaaradaha adduunka ayaa u aqoonsaday in ay tahay maalinta haweenka adduunka. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere, TV-ga caalamiga Star, magaalada Muqdisho.